marka dhabarka waxaa la dhahay in lagaa qala ayaa laga yaabaa ayaa la dhahay dhabarka maxaan ku dhahay in lagaa qalo operation aad gashida laga yaabaa la dhahay marka walaalayaalow waxaa idinka codsanaya inay igu soo duceysaan insha allahu tacaala ducada waa xaggiina السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليك دمانتنا وايد السلامي هلكا يقد داونيسان waa janaalkayga Musamiir Official bili janaalkayga hadaa ku cusub tahay subscribe like comment inta ii saar waa walaashin adinka codsanay subscribe tiya like insha Allah taala waqtigay ku tahaba waxaan ku leeyahay maalin wanaagsan habeen wanaagsan aniga hadda maalin bay ii tahay waxay ii tahay xilli duhur bay ii tahay insha Allah taala waqtiga ha idin wacnaado waxaa idin leeyahay duhurkii hadda wax yar ka dhiman insha Allah taala waxaa idin leeyahay waqtiga ha idin wacnaado ولاashino idinka codsanay subscribe iyo like iyo comment maanta maxaa idin wadaa horta maanta walaaleyga qaaliga waxa idinka codsanaya duca idinka codsanaya insha Allah taala waxa la dhahay dad badan hadii ku soo wada duceeyaan ducadiisa hal ducada hal qof in la aqbal laga yaabo ay dhahay marka walaaleyga qaaliga waxa iga xanuunsan aad iga xanuunsan gabadha saaxiibanaha isku dheernahay aad iga xanuunsan marka waxay dhahday asxaabtaada duca ii weydiiyay dhahday marka waxaan u baahanahay inay igu soo duceysaan u baahanahay gabadhaasi waxa laga hayaa aan ku dhahay dhabarka laga hayaa dhabarka aad u xanuunaya hadda ka hore waxay sameysay waxa ku dhacday jaraanjaro ay meel ay socotay oo yar qoyaan ahayd ay ka deganaysay maxaan ku dhahay lugta u baxday marka way koftay dhabarkii maxaan ku dhahay aad xanuun ooga gaaray isbitaalka loola orday ambulance la geeyay marka waxa lagu dhahay dhabarkaaga laf inay qaloocato u maleynayna insha Allah taala daawooyin ay soo siiyeen markay daawooyinka soo siiyeen daawooyinkaas ilaa waqti ay qaadanaysay say waqti u qaadanaysay daawooyinkaas waxa ku dhacday marka dambe ayadina maxaan ku dhahay easy ka dhigatay wixii marka maxaan ku dhahay daawooyinkeeda isticmaasho daawooyinka si u isticmaasho marba maalin ka dambe say ku soo kacay xanuun ku sii siyaaday marka aad ay xanuunsan tahay aad xanuun aad u weyn baahaya marka insha Allah taala igu soo duceysaan u baahanahay dhakhtarkii hadana ballamiyay ee la kulantay dhakhtarkii markay la kulantay wuxuu ku dhahay maxaan ku dhahay laga yaabaa in lagu abreshimo ayadana abreshinkaas ayay ka cabsanaysaa abreshin dhabar la abreshimo wallahi billahi easy ma ahan maxaan ku dhahay ina u soo duceysaan u baahanahay wallahi aad ay u xanuunsan tahay markaan arkay xanuunkeeda iyo markay ii sheegtay markay ila wadaagto wallahi aad ooga naxay dhabar la abreshimo horta easy ma ahan maxaan ku dhahay wadamadan aan joognana waxa waaye maxaan ku dhahay abreshinki waxa waaye shud iyo shal waaye hadii aad ku caafimaadana waa alxamdulillah haduu maxaan ku dhahay aad lagu guuleysana wallahi waa khayr marka abreshinkaas ay ka cabsanaysaa dhabar la abreshimo easy ma qof kasta abreshin marka loo soo jeediyo horta aad u cabsada aad u naxay qofka bili aadanka insha Allah taala waxa waaye easy ma ahan abreshin marka walaalahayga igu soo duceeya idin dhihi lahaa marka abreshinkaas inuu Ilaahay ka qabto oo maxaan ku dhahay xanuunka Ilaahay caafimaad ugu bedelo wallahi aad ooga xumahay aadan ooga qiiroonay waa saaxiibteyda qaaliga ah insha Allah taala anna waxa Ilaahay ooga bariya inuu Ilaahay caafimaad siiyo caafimaad saalix Ilaahay degdeg ooga soo rido Ilaahay waxba lama hayno xanuunkan hadda hay caafimaad ugu bedelo Ilaahay aydan waxa ooga bariya dambi dhaaf inuu Ilaahay ooga dhigo xanuunkan hay Ilaahay dambi dhaaf ooga dhigo aydan ooga bariya insha Allah taala wallahi dhabarka easy ma ahan aan ku dhahay meel maxaan ku dhahay horta jaraanjirooyinkan meelahan maxaan ku dhahay dukaamada la galaayo meel bangi ahayd ay bangi ahay ka soo baxday marka jaraanjirada marka way qoyaneed adi qoyaan saas lama ahayn laakiin dad badan isdaba maray adi horta qadar qoran way wax walba way qoyaneed mise dad isdaba maray waxaas maxaan ku dhahay wax la qoraayo ma ahan qadar walba wax walba oo qoran maalinka lagu qoro ma dhaafay sidaan ku dhahay mar walba wixii Ilaahay ku qoro maanta hadii kugu dhacay inuu Ilaahay ku qoro ee waxaan Ilaahay kugu qadar way kugu dhacayaan haduu Ilaahay ku qoro inay kugu dhacana kuguma dhacayaan marka ayada jaraanjaradii meesha ay ka soo bixaysay ay saa oga soo deganaysa ayaa waxa sameysay lugtiya jabaq u dhahday lugti jabaqa u dhahday maxaa dhacay dhabarkii baa maxaa ku dhahay lafta oo lagu fadhiisto bili aadanka lafta u dambayso oo halka ku taalo lagu fadhiisto horta laftaas waa lafta aan ka socno waa lafta aan ku fadhiisano waa lafta maxaan ku dhahay aan wax walba ku qabsano oo ku socono waa alxamdulillah horta inta ka xanuunsanaysan Ilaahay oo caafiyo dad badan dhabarka sheeganay waa arkay inta caafimaadka oo Ilaahay siiyay Ilaahay u siiyay inta xanuunsan Ilaahay maxaan ku dhahay waa caafiyo ka caafiyo marka gabadhi laftiyaad jabaq dhahday aad ay u xanuuntay ambulance loogu wacay ambulance markii loogu wacay ambulance wuxuu dhahay maxaan ku istaalka la siixiyay waqtiga jiiftay kaniini iyo wax walba siiyeen marka daawooyinkay soo siiyeen daawooyinka isticmaala la dhahay marka xanuunkii waqtiga ka dambeeyay uu ku sii kordhayaa waqtiga ka dambeeyay uu ku sii kordhayaa insha Allah taala waxa idinka barayaa iyadan abreshinkaas ay ka cabsanaysaa waa lagu abreshimiyaa Allah in lagu abreshim u dhawaa lagu dhahay laakiin insha Allah taala Ilaahay waxba lama ahan inuu ka dulqaado يا
tan allana waa xaggeeda tii allana waa meesheeda tii gaalana ayaga waa waxay ayaga wataana waa meeshooda insha allahu tacaala waxaan ka baryayaa ilaahay subxaanahu watacaala ilaahay maxaan ku dhaha baryadana u duceynayna insha allah idinkana ay usoo duceyn doontaan aan jeclahay inuu ilaahay meeshan ay qalliinka dhabarka waa lagaa qalaa ay dhahay inuu ilaahay caafimaad degdega ugu bedela idinka codsanaya walaalahayga qaaliga insha allahu tacaala ay ugu soo duceeya idinkana khayr badanaan inay rajeynaya ducada waa xaggeena insha allahu tacaala waxaa lahay dad badan hadday kuu duceeyaan hal qof ducadiisa in la aqbalaa laga yaabaa lahay insha allahu tacaala walaalahayga qaaliga inay igu soo duceysaan ayaan u baahanay duca ayaa idinka baahanay insha allahu maanta igu soo duceeya insha allahu tacaala khayr badanaa inay rajeynayaa بليز سي maxaan ku dhahay dhac fara badan u heshaa linkigan haduu ku soo gaar subscribe like comment intaba u saar walaalayaalow ha ka baqeen shayarta insha Allah taala anigana waxa idinka codsanayaa haduu linkigan ku soo gaar like iyo comment iyo ducada commentigiina hala arka insha Allah taala khayr badan aan rajeynaa walaalahayga qaaliga waa walaashina inay waqtiga haydii wacnaado kulankeena iyo kulanka xiga insha Allah taala anagu caafimaad qaba anigoo caafimaad qaba adinkoo caafimaad qaba kulan dambe oo xiiso leh insha Allah taala khayr badan aan rajeynaa